magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn waxaa maanta shir isugu yimid qaar ka mid ah cuqaasha iyo waxgaradka gobolka Cayn sidoo kale shirkan waxaa ka soo qayb galay ururada haweenka gobolka Cayn dhalinyarada iyo wali mas'uuliyiin kale shirkan ayaa muhiimadiisu waxay ku saabsan laba ujeedo waxaana marka koobaad lagu diiday oo laga soo horjeestay shirka ay ku baaqanayso gobolada Sool Sanaag iyo Cayn inuu ka dhaco magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn bisha 15 sidoo kale waxaa lagu soo dhaweeyay go'aamadii ka soo baxay shirka dhacay Balacad waxaana waraalkaasi wada jira uga hadlay caaqil Saweyne Chief عبد الله محمد ديق عاقل آذن علي أحضر أي عاقل محمود حسن حاج عمر عيربوب يقار كم حبناها قولها عقاش قبل كعين وحاكي سياسة ملكا نقص حمار أيو أما هنا فذلك وهو حقوق لهين ديلي أما بوض هنا سياسة تناسلة ونصوح حماري الدول يدحلنا النبي الجيلاني نقول oo sidii talax ka dhacdo kale ay ka dhacdo Buuhoodle taana ma ogolin leeyahay shirka la leeyahay waxaa lagu qabtay meesha loo jeedo higlada ismada dhulbaanta waa la yaqaan garaacay wuu ka maqnaa garaacsanaan garaacay wuu ka maqnaa garaac Ismaaciil wuu ka maqnaa garaac Mashqara waa ka maqnaa garaac Alburaan waa ka maqnaa سلطان سعيد وكمغنا يا بانك قالوا وياه واحد سبحان والله هويا عرفتوا هاي على حلب على سكين حلب كمرك لك يحكيهم وحاولت تقول لها صبحة وحاول الرسوق للمايو إذا ما تبروت كتير الميس شركة هجرة كان عيب هدوك وهاي هدو تأكيد القمر أيوه إنت كرجال تشرو سوريا سراج يعين ولا قمر كبوه هذا إنت هلال الوقت بقدر ولا لا كاتانا قمر نرسل نصور يبنا ما يعني ولا كأنه وحاوي شركي ولا إنك نبض نرمنا ولا حاول كا وحاوي Soomaali lay iyo maamulka qaatimo iyadoo laba maamul ay wada hadlayaan danahooda waa ka wada hadlayaan inagoo gudboon oo aynan ku hoosay mar ka hadlayna Hargeysa iyo Burcaan laga wada hadli maayo adduunka lagu wada hadlayaa saddex dawladood adduunka inoo garnaqaya haddaynu qaadano qaybteena oo waliba aynu ku cadnahay waa hagaag haddii la diido dee waxaynu nahay khaatumo midaysan waxaanu leeyahay waan ku gabagabaynaynaa xaajada nin shirkii lama burburin karo wuu soconayaa cidaynu u diranno ee u garanno iyaynu qabanaynaa kuwa wadnaha caddaynaya dadka ee Soomaaliya baa loo socdaa ee cuqaashu u badan yihiin waa kuwii baabuurta ka soo wada qaatay ee leeyahay ma yeelayno ورقاني وشوفنا وسكوني أنا يا دام سلام يا رجل سؤال اسمه رشة بس حافظة إيوه أنا رجل سؤال اسمه تجارب بعد سلام يا يبغى وميتي الجسران تويلتها هي عادي فرنسيس أولياً فكان أنت كم بتروح جدّا بقول لك السؤال هو كان هو أولياً إنه كهذا الله بصير كنا لما اليوم يسياسيات هي هدف كائن مدة دراسة قبلي ونطق سريع على تصنيع هي على تصنيع كيف كانت تصنيع كذا يقولوا تصنيع إنه يعتبر مدة كيف دلوقتي خاتون سنين SSC سنين خاتون هذا أي كيلومتر أدي أي كيلومتر خاتون وأنا بمسانكي كلاه يحلي هنا بسان beero Soomaaliyeed oo Soomaaliya beerashay kala go'go'ay hadii ay musamaysanay maamulka qaatimo oo aynu u dhamay sidii taladii uu hayo waxay la tahay intii kale soo fargeysay qaatimo ee maamulka wadanka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ku qabsata waa iska doolaala iyo yaani go'go'aaf iyo darakala wadawiyada sida budaaliyo yeesha kale laga sheekeeyo قالوا حسن الشيخنا قالوا يعني دولة فقراء ما قال إن حسن الشيخنا قالوا وضوطوا الله الشيخ قالوا وضوطوا لا
beeshii soomaaliya oo dhan balliqday mushkiladda weyne xamar iyo puntland oo iyadana balaaya dowladka nagaga soo basbaasayso wax laga soo dalbiyey oo himada lagu qabtay oo kuwooda xaggiisa loo soo riixay khaatimo waxba loogu dhigi kari maayo hadafkeedana waxba loogu dhigi kari maayo markooda mudanayaal iyo marwoodu waa idin salaamnay waxaan idinku salaamay salaamta islaamka insha allah waxaan jeclahay waxaynu doonayna inaynu helno iskuna mid noqono waxaa meesha looga baahan yahay midnimadeena in laysku tiirsanaado dadku is aamino iskuna kalsoonaado waxaan leeyahay ummad baynu nahay jiri jirtayna magacna kuwa adduunka meel gaala iyo islaam meel kasta marka hore taa inaynaan dib uga dhicine teeni aynu haysano nimanka ilada ku jiray inama matelaan inama matelaan inagaa diidan waa diidan kuwa nabadnimada inama matelaan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كاتب أنا هذا كبدي ما يصل حضارة ويليان ومان بانان كجديرية كتبان العوية وحبوب معنا الروح يا نوال يا من ما إلهي نسيو إلهي الروح نسيو إلهي الروح يا أبعاد إلهي أجل الروح نسيو يا الروح الكل سيو قولك الله نبع ويه نبع ويه كن عبد الله حسن على ويه نكاي قبرون بانكاري ليس وقل عين جوا قلت لك علامي ومحوق قبرون بانشي نكاي نبوه الله رسولك قوينا قرر وانا نبعنا قرر جري إيه أنا أقول الاثنين الله ولا رعين قوتها إيو شركة الله ولا رعين كاسي بين بوشي بين بوشي وهذا البوضة شغينا وهذا الفضلالك يقول لا خلاص شيء بعيسي راجعين اليومية ما يلدون كمان شاسي وابين إنه البانطوي ما يو قبل يدقمون قبل بعد كذا ما تجيله إنت بعد خلاص هم نيجي سنة ما تجيله وعن كل هذين نذكر هذا خاطره وعن ما تدان وهاي وخاطره كذا عندنا وهاي وقال عنكم كذا عندنا وهاي ونبكرنا المجرم ونبكر المجرم ما يلينه يلي الله أقولك هذين كاوي قولك الله إنه يلي وحوي وعملنا هي دولة ما عملنا الله سمعتي دولة يلا مسرته ما دعونا يلا وريا وربعتا سياسة ربعتا وين يوم كنسون يفضل gobolkan cayn maanta hadalkiisa waxaa urmuweynaa yoolkii ka dhacay caalami yoolka caalami waxaa fakarkiisa iska lahaa shakhsiyaad yaryar oo ah dana gaara wata dana gaara la guureynaya aan ka hadlin ummadii shacabkii deegaanka cid kala socotay ma jirto tobankii haynaa ka horey warqado laga guuranaya warjoojiya waxaan leenahay ciddaasina efurka ay ku soo dhex towreen mas-uuliyaddeeda horta iyaga ayaa qaadi doonaa السلام يا دبوين هالكن سويمي شرفت بدن عوا الرئيسين يا هبلا سلامته مركا كلا قطاب هبلا وهذا مغرى سلام لقيت يا ضياشة يا عقاشة يا قرب الجربتة يا لمان برشاد هالكن سويمي السلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام هذا الكوال السوي والدارين صدق قلبه إلى ما أنت لقاه يا مد وحكة تابني والتشركة للشيء وأويدين شرشر بمقاعد اللودي
oo qaar 10 milyan oo dollar lahaa oo qaar lahaa intaasoo lacaga kii u dambeeyay balicad maalintii dhawata lagu qabtay loo diiday 600,000 oo dollar buu ahaa kharashkiisu lacagtaa waxaa loogu diidayay fadii intaa oo shil oo dhaqaale laga heli lahaa u diiday yaa kan maanta wada baa kan maanta wada waxaan leedahay anigu bulshooy haddii kii lacagta lahayo dhulbahanta ku tashanayay la diiday ka lagu baabi'inaya khaatumo yaynaan yeeli qodob laga qodobkaa waxa weheliyo qodobkaa oo daba jooga insim waxaa la yidhi dabeere hadday lug damba fidiso waxbaa looga soo joogo maahan fiicnayn insimka iyo madaxa puntland u sarreeya ee dhulbahanta hadday israacaan waxbaa ku soo jira shirka cuqaasha gobolka cayn waxgaradka midurboodka dhalinyarada haweenka dhammaan martida ka soo qayb gashay golahan waxaan ku salaamayna salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan kusoo jeedinaynaa qodobadii shirka ka soo baxay baan rabaa inaan ila akriyo iyadoo layidhi akri uun qodobada ugu horeyn qodobka ugu horeeya ee shirkan ka soo baxay in la sugo midnimada iyo nabadgelyada guud ahaan sool sanaag cayn gaar ahaan gobolkan cayn marka ugu horeyso in la sugo nabadgelyadiisa aynu iska kaashano sida loo sugi lahaa nabadgelyada waa qodobka koowaad qodobka labaad waxaanu ka soo horjeednaa faragelinta qaawan ee uu nagu hayo maamul goboleedka puntland ee cad ee had iyo habeen ka soo baxaysa waanu ka soo horjeednaa faragelinta qaawan ee sida tooska ah ee maamulka puntland mar walba ay nagu hayaan annagoo ku hadlayna afka shacabka gobolka cayn waxaanu taageero buuxda u nahay maamulka khaatimo iyo shirkii ballacad lagu qabtay go-aankii ka soo baxay waxaanu ka digaynaa shir lagu qabto gobolkan cayn oo aysan ogeyn waxgaradka gobolka cayn maamulka khaatimo ningarboodka cuqaasha culamada diinka ururka haweenka oo kaalinta koowaad nagaga jira waxaanu ugu baaqaynaa oo qodobka afaraad ah qurba joogta gobolka cayn inay midoobaan nabadgelyada iyo horumarka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. علي عثمان سبحانه دكتور ورقة تلفزيون عالمي إسماعيل ليوس مقالة بوهول